wasaaradda macdanta iyo wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo maanta ku qabtay munaasabad lagu weyneynayay maalinta faraxalka adduunka. munaasabadan waxaa lagu qabtay iskuulka Badar oo ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Kismaayo. munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka, wasaaradda macdanta iyo biyaha Jubbaland, ardayda wax ka baratay iskuulka Badar ee magaalada Kismaayo, fanaaniinta kooxda Waabari iyo marti sharaf kale. fanaaniintii ka soo qayb galay kulankan iyo qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulka Badar ayaa halkaasi ku soo bandhigay heeso iyo riwaayado ka turjumaya faa'iidada faraxalku uu leeyahay. dadweynaha waxay sheegeenbo xaaji waa kugu diyaarano kuwa badan. Wash. We all wash our hands before and after eating. Wash. Iska taagna wada imaanaya meel kore kuna. agaasimaha waaxda fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland iyo agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta Jubbaland ayaa sheegay in ay muhiim tahay in laga faa'iideysto maalintan isla markaana bulshooyinka lagu baraarujiyo sidii kor loogu qaadi lahaa nadaafadda. inaan isxasuusino baa loo baahan yahay inagoo dad islaam ah in si fiican gacanta la isaga dhaqo, nadaafadda la isaga dhaqo, guriga la isaga hagaajiyo, wax oo dhan nadaaf laga dhigo. haddii guriga la iska nadiifiyo oo hareerihiisa la nadiifiyo oo gacmaha la nadiifiyo oo musqusha la nadiifiyo إن شاء الله عذر هذا ويرانيان إنه يضع ساعتين ورجلي أنت قشك كوتشر وعذر كوتشرا نظافة هيجين كجار كأنا أيجنا والله أنا فريو لو آدمك إنك هذا مالين تشان شرب عمنا سلات كنون ويسيسنون عم هنا نقول أسنادي في النوم إن أينو نظافة عن كل قانون محل هذا نوصي هذا حافظة هي الماء هي واحد نمبر مرها وعي جلي ومعنيه سنة طبعا أكتوبر marka hadii kulay waxay noqonaysaa hal wixii barnaamijkan dhageysanayna hadii noqoto odayga reemiga ah ee waxa la caloosha xarunta markii uu meeshii buluucadu ku farxashay iyo odayga islaantiisa haystay agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay faraxalku wuxuuna sheegay in nadaafadda koobaad ay ka bilaabato gacmo dhaqa isla markaana ay muhiim tahay in kor loo qaado nadaafadda. proper hand washing waxa kala jira laba eray faraxal aan gacmaha oo dhaqdo iyo gacmaha oo si habboon loo dhaqdo laba kala yihiin hand washing iyo proper hand washing anagu dhamaanteen Soomaalida waan faraxalnaa maanta dhan laakiin sida saxda ah u faraxalno maanta ardayda iskuulka insha Allah notes doona oo lagu soo baray faraxalka saxda maxaa laga wadaa faraxalka saxda waxa laga wadaa in jeermiska gacmaha ku jira la dilo haddii gacanta qofka ugu nadaafadda badan maanta soo qubaysato haddii gacantiisa shaybaar la saaro oo indhaha mataqaanaa microscope-ka waxaysan arki karin indhuhu baa jira oo jeermis la yidhaahdo haddii shaybaarka la saaro si jeermiskaas loo fiirsho waxaa la sheegaa in ka badan 1 milyan oo jeermis waa kor saaran qofka ugu nadaafad badan 1 milyan oo jeermis. Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo.